gudidii dhexdhexaadinta ka dhex waday xukuumadda Somaliland iyo jabhadda uu hogaaminayo Cornel Carre ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. soo dhaweyntan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf aad u fara badan, culumaa u diin iyo waxgaradka deegaanka. ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta deegaanka oo sheegay in intii ay gudidu maqnaayeenba ay sii wadeen iyaga dhexdhexaadinta iyo wada hadallada. waxaana hadaladoodii kamid ahaa halka maanta waxaan ku soo dhaweynaa waftigan balaaran salaadiinta ay hogaaminayaan oo ahayd qoladii nabadeynta ee buurta tabca muddada 4 bilood 5 bilood ugu maqnayd, muddadaas nabadii ku maqnaa hadda ay halkoo yimaadeen si khatimaan gabagabadeedii bay insha Allah ku jiraan. waa soo dhawaadan leenahay, gacan furan ku soo dhawaada, gobolka ku soo noqoteen nabada tii awoodeen balaaran sii wadnay, wadin ku sibeynay, wadin sugeynay. soo dhawaada mar dhafsaad mar saddexaad waftida balaaran nabadeynta muddada dheerna Hargeysa ugu maqnaa siday u xalin lahaayeen arrinta khilaafku ka taagan yahay. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. annaguna intii waa sii shaqaynaynay, meel fiican baa wax inoo marayaan, idinkaana noo warrami doona, waana laydin sugayey. waxaanu maanta halka si farxad leh ugu soo dhaweynaynaa waftidii ballaarnayd ee naga maqnayd ee aanu sugaynay. hadday ahaayeen salaadiin, xildhibaano, aqoon-yahan, waxgarad, waa idin soo dhaweynaynaa. marka koowaad waxaan idin leenahay safar khayr qaba, idinkoo sida soo dhawaada. waxaanuna mar labaad ka leenahay waxaad moodaa xilli waliba inay sahleedahay. waxaad moodaa hadda gobolka in sahi nabadgelyadu uu muuqmuuqdo oo aynu taladeennii markaa dib ugu noqon doono. halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa waftigii ballaadhnaa ee ku maqnaa nabadeynta muddada dheer ugu maqnaa magaala madaxda Somaliland ee Hargeysa. waftigaas oo ahaa boqorro, salaadiin, xildhibaano iyo culimo iyo indheer garad, aqoon-yahan, cid walba. iminka waftigii waxay soo dhameeyeen hawsha badankeedii, intii u dambeysay ayay iminka u socdaan oo khatimayaan. annaguna waxaanu ahayn odayaashii meesha sii joogay, hawlaha sii waday. hawshu meel fiican bay maraysaa. insha Allah idinla waa gabagabadii baa sidaan. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. odayaasha salaadiinta, culimada, xildhibaanada maaha kaliya oo Sanaag maaha. waxaan u aragnaa inay yihiin odayaashii qaranka gobolka Sanaag dhammaan iyo dadka Soomaaliyeed. hadday tahay nabadda, hadday tahay horumarinta, hadday tahay soo dhaweynta, rag waxaasoo dhan la socda, dulqaad u leh, dhammayn kara, ka shaqayn kara ayaanu rajaynaynaa. ku soo dhawaada gobolka Sanaag. waxaanu maanta halkan u joognaa inaanu soo dhaweyno gudidii nabadeynta gobolka Sanaag ay hogaaminayaan boqorada, salaadiinta iyo cuqaasha, culimada. arrintaasoo in doolar lagu maqnaa waqti 4-5 bilood gaadhaya oo hadda gabagabadeedii soo gaadhay. insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro oo arrintaa inoo soo ururiyo. haddeena meel fiican bay maraysaa, wayna dhowdhowdahay. ku soo dhawaada. waxaanu soo dhaweynaynaa odayadii, salaadiintii iyo boqorradii iyo culimadii iyo cuqaashii aana hawsha kula jiray. ilaahay baa nabad keenay. suldaankii guudna way naga xanuunsaday, aa loo duceeyey, ilaahay ha caafiyo baanu leenahay. hawshuna meel wanaagsan ayay inoo maraysaa. waana haddii alla yidhi waxaynu insha Allah ilaahay ka rajaynaa inay inagu raagin. halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa waftiga ballaaran oo boqorrada leh, salaadiinta leh, xildhibaanada leh ee gobolka Sanaag ee u maqnaa nabadeynta gobolka Sanaag. insha Allah hawshaasna mid degdeg ah u dhamaato, si yar oo u dhamaato aanu shaqeynaa ilaahay idankii. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadashay gudidii dhexdhexaadinta ka dhex waday xukuumadda iyo jabhadda uu hogaaminayo Cornel Carre ee maanta soo gaadhay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, iyagoona xusay oo sheegay in ay dhammayn doonaan khilaafaadkan soo noqnoqday iyo colaadahan ka jira gobolka ee dibna nabadeynta u soo celin doonaan. waxaana yiraahdeen reer Sanaag oo aan maanta u kala hadhin oo aan beelaysnayn maanta reer Sanaaga oo si midnimo noo soo dhaweeyay. aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. annaguna odayaashii nabadda ku maqnaa baanu nahay, nabadii baanu sidnaa, nabadii baanu dhammaystiri doonaa insha Allah. waa nala dhammaystiri doontaan insha Allah. u kala bixi mayno. waxaanu leenahay reer Sanaagow, dadka qorigii waa la dhigay, qalinkaa la qaatay. insha Allah waxaynu noqon doonaa gobollada la tartama ee gobollada kale loo tartami doonaa. waxaan waqti gaaban weeye. waxaan leeyahay wixii dambe hadalkay oo isu dambeyn doonaa. mar labaadka oo ka cudur daarayna horta habsaka aanu yara habsanay, idinkoo ilaa maanta halkan loo taagnaa. taa waa ka cudur daaray, waa idinka mahad celinaynaa. runtii annagu waxaanu hayn safar ballaaran, erga ballaaran baanu hayn.
muddo 4 bilood hadda ku maqnayd galbeed oo maanta ka soo noqday qaybna naga soo horeysay qayb kalena daba socoto ilaahay xamdigii ilaahay ma hadda iska leh nabad nagu soo celiyay waxaan insha Allah aan ku maqnayn hawladana oo inoo wadana oo caam ah oo nabadgeliyo hawshaas insha Allah si nabadgeliyo ah marka isu fariisano baynu isaga warrami doonaa farxad iyo rayrayn walba ku seexo soo dhaweynta laftigeeda waxay ka turjumaysaa biseelka reer Sanaag maanta u bislaadeen nabadgelyada waa fariin ay u dirayaan shacbiyada kale inay muujiyeen heegan u yihiin una taagan yihiin una ooman yihiin nabad kulley mahadnaqa waxaan la qabaa sidii hore loo maaragtay la idinku mahadnaqay baan soo dhaweynta quruxda badan noo samayseen uga mahadnaqayna mar labaadkina kulley anagu socod dheer baan soo galay suldaankii guudna waa ogtiin oo xanuunsanayaa waftigana waxa hogaaminaya suldaan Cabdiraxmaan anigu weligay Ilaahay ceerigaabo horow maan arag nin gudiga garxajisaan oo waxaan ugu baaleeyaa garxajis colaad bay barta horta aniga ceerigaabo iyo ceelaf weyn iyo deegaanka waxaan qabaa in tiin reer Sanaag oo dhan laakiin reer Sanaag Sooriyada way yaqaanaanay nabadana ha bartaan waxay la tahay waqti gaaban baan joognaa waa idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta ballaaran ee aan samayseen intii aan maqnayn iyo hawshan ku maqnaynna waa ogeydeen waxaan rajaynaynaa nabadgelyadaas aynu ka wada shaqeyno haddii Ilaahay yiraahdo guulna aynu ku dhamayno sidaan rajaynayno raggii naga soo horeeyay si shaqeeyay hawl badan si qabtay sidaan ka warhaynaa